السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسر وهذا حلقة وتلفزيون كعالمي OBN برنامج خاص أو عن لي لندنه مسؤول سارة أو كترسن حزبية أوركا أونلف أورون هانتي نوغا وربحين دونا حالة دالك جودهدا هذا نوحان إسكين بريا بالمركورة مسؤول كأيام كسودوينيا برنامج كينن خاص كا بالكسودو تلفزيون كان عالمي دولة ديجان كورميا OBN كسودو مسؤول حسن بالسفي عن سكين بال. بسم الله الرحمن الرحيم. وريه فرحان وندو هاي واد ما صنتهاي. تلفزيون كOBN وما سنيه هاي ورئيسيا أي سودياريين. أنا جا مقعي وحلا حسن معلن أما حسن محمد أو معلن. وحنا هاي مسؤول كترسن شفت ودني جحرين توقعدينيا. وحنا كل شيء مقالة دقحبر. waxbarashadii waxaan ku soo qaatay dugsiga hoose dhexe magaalada Dhagaxbuur dugsiga sagaran waxaan ku qaatay magaalada Harar waxaan haystaa muxuu ahaa shahaadada master oo political science ah luqaduhuna way iska fara badan yihiin laakiin intaas aan dugsiga ku yeeshaa aad baad maasantahay mas'uul bal marka hore aan u soo laabto dhankaasi bal su'aalahayga aan u soo laabto su'aasha ugu horeysa ku weydiinayay waa marka hore dilkii loo geystay fanaanka caanka ah ee Hachalu Hundessa hadda 3 أسبوع كسو وريكتي بل سيديد وعركتين بل فسر نو فسر runtii dilka loo geystay fanaanka Hachalu Hundessa waa mid fal argagixiso oo waxashnimo ah runtii falkaas ujeedada mid siyaasadeysan ayuu ahaa waxaana rabay in qoomiyadaha Ethiopia ku ugu waaweyn la isku dhufto waddankuna uu ka dhasho ay ka dhalato fawdo anagu ka xisbi ahaan maalinkii la sheegay in fanaan Hachalu Hundessa la dilay bayaan ma ka soo saaray bayaankaas wuxuu ka koobnaa 3 qaybood qaybta koobaad waxay ahayd in fanaankaas aan taasi u diro qoyskii qaraabadii iyo eheladii iyo dhamaan shacabka ummadda Oromiya meel kasta ay joogaan in aan taasi u diro qaybta labaadna waxay ahayd in dadkii faldambiyeedka foosh xun geystay sharciga la hor keeno qaybka saddexaadna waxay ahayd dardaaran guud oo ku socda shucuubta Ethiopia gaar ahaan shacabka Oromiya taas oo aan leenahay in xasiloonida nabadgelyada iyo deganaanshaha la dhowro oo aan laga macnihiisa xamaasad lagu falcelinin intaas oo ay ahayd runtii dadka faldambiyeedka ka geystay cidkay doonay ha ahaadaan waxay ku tala galeen waddanku inay fawdo ka dhalato waxa la yiraahdo luqadda af Ingiriiska anarchy oo fawdadaas uu dadana waddanku noqdo mid nidaamka sharciga sareynta iyo kala dambeynta uu burburo halkaas oo laga yaabo in waddanka dhan ay burburisaba marka runtii arrin foolxun bay ahayd waan aad iyo aad nool u xambaaraynay waa gartay aad u maasantahay tafsiirka naga siisay dilka cid walba ha geysato ma isdhihi karaa mas'uul in qoomiyadda aan walaalaha nahay hormada hadda xilka labada sano hayso in aan loo ogoleen lagu fasiri karaa runtii su'aashaas عدي قبطة سي معقولة أو مانجلا أو فكرة سماها وحوي قوميد ورمضو وقوميد ولا نهاي وقوميد أن هلقن إن بدن أصوات الجليسية حقوق حرية وهلان وقوميد أدو بلارن أو أقوياهن هجاميال عدو البلد قف قدها هي قوميد أسلام وقلا وقف عن سي لوجيكا أما معقولة عن أفكريني sharciga Ethiopia ama dastuurka Ethiopia qodobkiisa 15aad ayaa wuxuu dhigayaa in loo sameeyo sharciga qofka muwaadinka ah wuxuu xaq u leeyahay in la doorto inuu wax doorto iyo in la doorto intaba qoomiyadda Oromadana kama duwana dadka la dooranayo dadka wax dooranaya marka cidda noqonaysa mas'uulka ama hogaaminaysa waddanka qoomiyadu bay ka soo bixi lahayd marka qoomiyadda Oromada haday ka soo baxeen waa in la soo dhaweeyaa oo macnaheedu la garab istaagaa
dhinaca kale haddii la fiiriyo dimuqraadiyadda iyo one man one vote de waxay noqonayaanba automatic dadka ugu tirada badan qowmiyad ahaan marka la yidhaahdo laakiin arrintaas waxay ku xidhan tahay shakhsiga hogaaminaya inuu oromo yahay inuu axmaar yahay inuu soomaali yahay iyo inuu tigre yahay micno badan oo samaynaysa waxaa micno samaynaysa inuu qofkani u qalmo booska ama hogaaminta waddanka ma u qalmaa ma ka soo bixi karaa ma hogaamin karaa ummaddii ma isku wadi karaa qowmiyadaha kala duwan dhibaatooyinka Ethiopia haysta ma ka saari karaa ma ka gudbin karaa caqabadaha jira taasaa u baahan in la isweydiiyo laakiin waa arrin siyaasad cunsuriyeysan weeye haddii la yidhaahdo qowmiyadaas kama bixi kartaana ma garanaysaa ma aha wax la aqbali karo qowmiyad dhan lama dhihi karo qowmiyadaas waxa ma hogaamin karto waana shay xaaraana lama dhihi karo arrintaas saasaan dhihi lahaa dowladdu waxaa jirtay tallaabooyin ay ku dhaqaaqday markii la dilay Hajaalo Hundisa ay rabshada ay dhaqeen kadib marka tallaabooyinkaas ay ku dhaqaaqday dowladdu sidoo u aragtay mas'uul runtii dowladdu markii la dilay fanaan Hajaalo Hundisa kadib tallaabooyin bay qaaday tallaabooyinkaas ama dad siyaasiyiin ha la xidho ama dad shacab ha la xidho ama dad ka tirsan muxuu ahay dowladda lafteeda oo dowlad deegaanka Oromiya ha ahaadaan la xidhay baa jira sidaan wararka ku helay ama xogtaan hayno runtii arrimaha noocan oo kala waxa u baahan yihiin had iyo jeer maadaama oo dilka Hajaalo Hundisa diliska caadiya ma hayn criminal act ma hayn dil siyaasadaysan oo qorsheysan oo loogu talagalay waddanka in lagu burburiyo saa darteed qofku haddii uu dambi galo saraynta sharciga qabanaysa cid kasta oo dambi gashana in la qabto oo la xidho waa waajib dawliyo oo saaran si loo ilaaliyo amniga iyo nabadgelyada waddanka laakiin maadaama arrintani criminal act caadiya ama dambi la galay oo caadiya una ahayn oo mid siyaasadaysan aha dawladdu waxaa looga baahan yahay inay ilaaliso dastuurka qodobka 17aad oo dhigaya xuquuqda muwaadinka liberty of person marka taas macnaheedu waxa weeye in sarayntii sharciga la ilaaliyo isla markaana aan lagu xadgudbin xuquuqda ibn aadanka ama muwaadinka marka labada in la balance gareeyo way adag tahay mararka qaar kood oo hadii xamaasad waxa lagaga jawaabo waxba halaysmi macni hadii dad badan la xiro hadii dadku ay maartay si aan sharciga waafaqsanayn ugu ficiliyeen iyadana lafteedu mushkilad bay keeni saa darteed hadiya jeer waxa la isku dayaa oo anagu aaminsanahay in sidii xeegana lagu xagan lahaa ilkana ay ku badbaadi lahaayeen fuligad la galo oo la isku balance gareeyo saraynta sharciga oo la ilaaliyo isla markaana aan lagu xadgudbin shakhsiga ama xuquuqda muwaadinka sidaa darteed haddii ay dawladdu excessive force ay isticmaasho xoog aan u barbar dhignayn qaabka wax loo daminayo way dhib bay keenaysaa xal ma keenayso marka had iyo jeer maadaama arrintani sidaan sheegay ay siyaasad ku leedahay arrimaha noocaas oo kale ah caalamka qaab wada xaajood ama dialogue in mistushi la wada fadhiisto oo laga wada hadlo maxaa dhib oo jira dhibkana ma aha mid maanta soo bilaabmay ma aha mid labadii sano u dambeysay kaliya ku ekaa waa dhib in badan soo jiitamay oo ururay cabashadiisii iyo ridil ficilkii ka dhashay way saa darteed dhibkani maadaama uu dhib soo jireenayahay oo dawladdan hadda jirto uun aynan keenin waxa weeyaan dhib in badan soo jiitamay dhibka inta badan soo jiitamayay in si siyaasiya oo macnihii ay ku dheehan tahay ilbaxnimo oo wada xaajooda aan anagu laftanadu qayb ka noqono dadka saamileyda ama stakeholders oo dhan ay qayb ka noqdaan runtii marka la fiiriyo dhibkana dhib ama qoomiyad kaliya tahaysta ma aha ama shakhsiyaad kaliya tahaysta ma aha waa wadar canfar baa wax tirsanaysa Soomaali baa wax tirsanaysa Oromo wax tirsanaysa Tigray baa wax tirsanaya ahmaarada wax tirsanaysa qoomiyadaha kale Gambeli iyo Benishangul iyo sidoo kale waxbay tirsanayaan marka qolo walba hadda wax weydiiso anagana dhibkaasaan haystay ku dhihi saa darteed in la is dhageysto oo mistushi la wada fadhiisto oo xal siyaasi loo raadiyo ayaa uu xal ku jira laakiin hadii qaar la xiro qaar ay dawladda maartay weeraran dhib koon baa si siyaadi mooyee
wax xal oo laga heliyo aanu ma jiraan qabaa laakiin in si cilmiyeysan oo macquula oo maangala oo siyaasadda caalamka lagu xaliyo oo si maartay xadaarada ku jirto xadaarada ku dhaanta in lagu xaliyo ayaa ka haboonaan lahayd baan qabaano bal waayhay dilkii ka bacdi loo geystay Hajalu Hundessa kadib waxaa jiray rabshado wato dil iyo naf iyo maal iyo waliba waxyaabo badan lagu gubay bal dhibaatooyinkaasi dilka ka dambeeyay u aragtay rabshadahaas runtii aad baan ugu xumahay in dadka adoon sameynaya ay dil geystaan hanti ama dawladdu halaata ama shakhsiyad ay leeyihiin ay gubaan waa wax laga xumaado hase yeeshee at the same time dhinaca kalena in dadku ay grievancegooda dhibaatadooda ay sheegtaan iyadana waxaa dhigaya dastuurka Ethiopia qodobka 3aad baa dhigaya inay dadku freedom of speech freedom of demonstration macnaheedu banaan baxyeen ay ku muujiyaan marka taa banaan baxas maadaama sharcigu uu ogol yahay dadku wax way ka taban karaan dawladda dadku dawladda wax way ka taban karaan laakiin waa inaad had iyo jeer aad ogaataa mabtina gidita waxa xoosh lagu yiraahdo xaq aad leedahay iyo waajibaadka ku saaran xaq aad leedahay waxa weeye wixii ka maqan ama waxa tabayso inaad si cad u sheegan karto oo u qeexi karto leedahay waxa anagu waan ka soo horjeednaa hadda مثلا waxa la dilay Soomaha Hajalu Hundessa fanaan Hajalu Hundessa waa la dilay waxa leedahay waan banaan baxaynaa mana fariisanayno mana seexanayno mana tagayno ilaa waa inta dadkii muxuu ahaayay dambiga geystay faldambeedka la soo qabanayo waa fair wala sameyn kara laakiin waa goorma waa marka si nabad galiya xaqaaga aad u sheeganayso weey marka in dadku ay waxa ay tabanayaan ay sheegtaan dastuurka Ethiopia oo fasaxay laakiin in dad la laayo waa mid khalada in guriga la gubo oo anti la burburiyadana waa khalad laakiin mar hadii xamaasad ay meeshii timaado oo la isfiicishado wax kasta waa macquul laakiin in xamaasadda meesha laga saaro danta guud iyo dalka iyo dadka la ilaaliyo waa waajibaad ina wada saaran dhamaanteed ama ha noqoto dawladda ama ha noqoto shacabka sareynta sharciga dawladda kaliya tooma ilaalin karto waa inay shacabku ka qayb qaataan sareynta sharciga marka arrimahaas waa ashaamina garoosh waxa xabashka lagu yiraahdo ama gray area way iska yar badan tahay in la balance gareeyo in xamaasadna la iska ilaaliyo sharcigina la ilaaliyo marka dawladdu marka qaar kood waxa laga yaabaa inay xamaasad ku shaqeyso waxa laga yaabaa marka shacabku inay xamaasad ku shaqeeyaan laakiin waxa muhiim ah in la isla fahmo dawladdu inay shacabku u taagan tahay shacabkuna uu dawladda aaminsan yahay laakiin marka dib loo fiiriyo dib loo akhriyo taariikhda dawladihii Ethiopia soo maray mid kuwa shacabka u taagan mayna ahayn runtii mayna ahayn sadarteed dadka dawladdu mayna u taagnaynay dad dawladda shacabka u taagan dantiisa mayna ahayn dawladda dadka gumaysata oo dadka burbursan bay sadarteed wali shakigi noocaas oo kala ah ayaa dadka ku sii jira sadarteed mas'uuliyadda dawladda ka saaran waxa weeye inay tusto inay shacabka u taagan tahay dawladdu oo danta shacabka ilaalinayso taa marka waxay ka saaraysaa madmadowga shacabka iyo dawladda ka dhex taagan taas marka waxay u baahan tahay in dadka awareness-kooda kor loo qaado dadka la educate gareeyo dadka loo tuso in dadkan dawladdu ay matalayso dadka isla markaana ay ka shaqeynayso danta dadweynaha laakiin hadday u arkaan inay dawladdii ayna dantooda ka shaqeynayn markaas ay dhibaatada halkaas ka bilaamaysaa marka maadaama oo waxaynu ku noqonaynaa cycle of violence macnaheedu had iyo jeer in la isdilo maanta haddaad adiga disho anaa aan berri ku dilo faa'iido ma keenayso wax faa'iido keenaysaa ma jirto laakiin inaan mis sii wada fadhiisano maxaa dani nooca halkan xagan dhinacayna uga socon karnaa dawladihii hore ee dadka gumaysan jiray way dhammaatay waqtigoodii saa darteed hadda dawlad cusub oo nidaam cusub leh oo dimuqraadiyad iyo cadaalad ay ku dheehan tahay inagoo dhammaanteen ka wada qayb qaadanaysa inuu u hirgelin karnaa halkaasay su-aashu taagan tahay laakiin haddii qoloba ay intii xoog isbiddo ay tiraadaan anna maanta waxaasan samayn kana waxaana dili kana waxaana xidhi dee violence macnii qalalaasiin baynu ku noqonaynaa taasuna dalka iyo dadka midna mustaqbalkiisa uma fiicna sax waa gartay waxaa jiray rabshadaha kadib in rabshadii ka jiray dowlad deegaanka Oromiya awgeed in dowlad deegaanka Soomaalida ay soo gaadho dhanka isku socodka maxaa sidoo kale dhanka maciishada in ay khasaare halka ka soo gaadha ayaa jirta bal dhibaatooyinka dawlad deegaankeena soo gaaray maxaa loo baahan yahay in
runhaantii mar labaad uu u dhicin dadka oromada iyo ummadda Soomaalida waa dad walaal ah waa ummad isugu dhow mandaqan geeska Afrika marka la fiiriyo xagga dhaqanka taariikhda arrimaha bulshada dhaqaalaha ganacsiga marka la fiiriyo dadka waa dad walaal isu dhow xuduud dheerna uu ka dhaxeeya marka arinta uu koobaad ee talaabada laga qaadi kara waxa weeye wadadu inayna xidhmin baa laga dhigi karaa sababtoo ah danta ka dhaxaysa ayaa wax walba ka weyn ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Oromada maadaama xiriir qoto dheer oo soo jireen uu ka dhaxeeyay inaan wadadu xidhmin people to people hizb waxa la yiraahdo inay ka wada shaqeeyaan odayaasha maamulka xisbiyadu dhamaantood cid kastoo danaynaysa labada qowmiyadood inay horumaraan ayaa loo baahan yahay taas waa mid labaad waxa weeye ganacsatada Soomaalidu inay iyaguna kayd yeeshaan oo maanta hadii la yiraahdo wadadu way xirantay bari jigsiga wax laga waayo ama deegaanka wax laga waayo iyaduna ceeb weey waa inay kayd leeyihiin oo ay hadii wadadaas intay xiran tahay dadka ay macnaheedu lagu sii dabari karo mid laakiin fundamentalka ugu muhiimsan waxa weeye deegaanku saada socotaan wuxuu leeyahay dhul beereed aad muhiim ah oo aad u ballaaran oo iska dhaaf baahida ama demandiga dawlad deegaanka ka jira intay dhaafaan macnaheedu had iyo jeer waxa la fiiriyaa supply and demand baahida iyo wax soo saarka deegaanka sida la socotaan wabi shabeella mara ganna la mara jararba waxa jira toga jararba jira toga faafaaneed ba jira dooxooyin fara badan oo qabdahar iyo macnaheedu ku yaala qoraxay iyo nogob ba jira dhulku aad buu u duhin yahay jigsigii agaarkeeda inta banka iyo faafan u dhaxaysa hadii la beero jigsigii agaarkeeda aad buu uga badan yahay anigu waxaan aamsanahay hadii dalaga beeraha si fiican oo qorsheysan loo beero in iska dhaaf dawladgaanka in oo baahida ay deegaanka loo qabo in wax soo saarka dalaga inta kor loo qaado dawladuna ay encourage garayso dawlad deegaanku ay encourage garayso oo ku dhiiri geliso beeraleyda inay wax soo saaraan taasna waa iyaduna waa qorshaha ugu muhiimsan aan isleeyahay waa laga bixi karaa maadaama oo laakiin xidhiidh dhaqaale uu ka dhaxeeyo labada qowmiyadood in qowmiyadda kale ay macnaheedu dulsaar ku noqoto ama ay noqoto mid had iyo jeer macnaheedu in isu miisaaman yahay mutual benefit waxa la yiraahdo labada dhinacba inay faa'iido u leedahay qoladana ay ganacsiga iyo lacagti qaataan qoladana ay supply keenaan iyaduna waa muhiim oo inay taasuna kala go'in malihii Oromia ganacsigeeda naga laakiin at the same time iyadoo tani jiro labada dhinacba in la dhiirigeliyo ayaa muhiim aan isleeyahay marka inay dawlad deegaanku annaguna waan wacyi gelinaynaa inay dadku dalaga wax soo saarka ay yeeshaan oo ay isku fulaadaan oo ay ka shaqeeyaan oo xooga saaraan anu waxa bas leeyahay ma aha khudradda oo kaliya hadii si fiican loo beero labada webi ee waaweyn inta u dhaxaysa email la qalaf waa I think 600 kilometer way gaaraysa geeska Afrika oo dhan bay iska dhaaf khudradda iyo waxyaalaha yaryar raashin ahaan bixita ay ugu filan kartaa marka runtii taa in xooga la saaro ayaan soo jeedin lahaa sharciga si loo ilaaliyo shacabka maxaa laga rabaa sidoo kale dawladana maxaa laga rabaa inay ku waa su'aal fiican oo meesha ku jirta laakiin waa su'aal adag wadanada horumaray ee wadanada reer galbeedka shakhsiga ama muwaadinku xaq uu leeyahay xuquuq uu leeyahay uu garanaya dawladuna sharciga si fiican oo dimuqraadiyaysan bay u ilaaliyaan inta badan malihii 100% way ilaaliyaan laakiin inta badan laakiin wadanadeena maadaama oo dawladihii soo maray xoog la isku quurin jiray tiiba markaa waxay ku keentay shacabka in aynan dawladda aaminin oo la kala roobo marka aad maanta wax fiirinayso waa inaad gadaal taariikhdeena soo martay aynu dib u fiirinaa dawladihii ama rejiimadii soo maray Ethiopia waxay ahaayeen mid qaar shacabka muqooniya sidaan markii dawlad sheegayna sareynta sharciga dawladda kaliya ma ilaalin karto shacabku waa inay qaybtooda ay ka qaataan dawladda markaa maxaa looga baahan yahay in dadkii la educate gareeyo oo dawladdu inay shacabka u taagan tahay dadka la baro midda kale dawladda lafteedu marka ay ilaalinayso sareynta sharciga waajib baa dawladda ka saaran laamaheeda amniga inay sharciga ilaaliyaan laakiin
at the same time haddana waa in la balance gareeyaa oo la ilaaliyaa xuquuqda muwaadinku leeyahay taa markaa mararka qaarkood waxaa imanaya conflict of interest iska horimaadyo shacabku muxuu rabaa dawladdu maxay rabtaa marka haddii aan laga wada shaqeyn oo la isla fahmin halkaa dhib baa ka abuurmi marka shacabku waa inay u arkaan dawladdu inay dawladdoodii tahay dawladdu waa inay u tustaa shacabka inay dawladdoodii tahay laakiin u taagan tahay oo danta iyo nabadgelyada iyo xasiloonida ay ka shaqeynayso laakiin hadduu shacabku u arki waayo dawladdu inay danteeda u taagan tahay oo dawlad dadkii dilaysa oo xeeraysa ay u arkaan macnaheedu waxaa lagu noqonayaa back to square one macnaheedu waxa weeye dagaalkii jiray unbaa lagu noqonayaa taana macnaheedu ma aha in cid ka guulaysanaysa ay jirto maanta waad ka guulaysan kartaa laakiin berri waa laga guulaysan taasna waxaan rejiimyadii waddanka soo maray sidii xukunka looga qaaday Haile Selassie Mengistu TPLF iyo EPRDF wuxuu dhan markaas ku darto cid xoog ku muquunaysa ummad ma jirto saa darteed waxaa loo baahan yahay in wixii hore iyo mentalitygii hore ee muquuniska ahaa inta laga baxo in la wada hadlo oo la yiraahdo shacabku maxaad rabtaa dawladuna ay shacabkeeda u naxdo isla markaana ay sharciga ku socoteedo lafteedu waa inuu check and balance uu jiro oo la yiraahdo power hadduu isku meel noqdo oo dawladda kii maxkamadda qaaday kii wax xidhay kii wax walba uu isku meel noqdo iyo xisbigii shacabkiina ay u arkaan dawladdoodii inay dawlad iyaga matashayn ahayn halkaas uu dhib ku abuurmaya laakiin haddii la is aamino shacabku dawladda aamino dawladdu ay shacabka u shaqeyso sharciga saraynta la wada ilaaliyo xaqa ay shacabku leeyihiin la sugo saraynta sharcigana la ilaaliyo macnaheedu sida wadannada reer galbeedka oo kale ayaa loo dhaqmi karaa marka waxaa loo gudbi doonaa heer dimuqraadiyadeed heer xasilooni heer sinaan heer cadaalad laakiin haddii cadaaladdu meesha ka baxdo fawday noqonin fawda hadday noqotona anarki baa dhalan anarkigaas hadduu dhashana waddanku wuxuu qaadaya wadooyinkii wadannadii burburay sida suuriya oo kale yemen oo kale libiya oo kale taana anigu hadda ma rajaynay inay dhacdo insha allah bal haddana aan u gudbo dhanka xisbigan usoo laabanaya xisbigiina run ahaantii intan muddadan sanadkii lasoo dhaafay wax qabadkiisii iyo waxa idin qorshaysan iyo bal ahmiyadiisa adigoo soo koobaya noo faahfaahi waad mahadsan tahay wari farxaan runtii xisbiganagu saad la socoto muddadii u dambeysay dhowr iyo 20 sano u dambeysay waxaan ku jiray halgan halgankii hubaysnaa waxaan u bedelay markaa halgan nabadgelyo dimuqraadiyad cadaalad sinaan wax ku raadinaya markii aan dawladda federaalka Itoobiya heshiis kala saxnay waddanka nimid shirar waaweyn baan qabanay shir weyn baan sanadkii hore ku qabanay magaalada Qabdahar oo aan shirka ugu magac daray wada tashiga shabahada wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo shacabka Soomaalida ogaadeenaya ama dawladda deegaanka 12 gobol baa laga soo qayb galay indhaargaradka waxgaradka qaybaha bulshada dhalinyarada haweenka dhammaan way ka soo wada qayb galeen shirkaasu waa markii ugu horeysay si nabadgelyo muddada dhowr iyo 20 sano waddanka gudihiisa uga dhaco bal inaan dhageysano ra'yiga bulshada dhibaatooyinka gaadhay waxay qabaan waxay nagula talinayaan buu ahaa marka runtii wax badan baan ka faa'iidnay inaan shacabkii saragno oon is xog wareysano oon xogta kala qaadano aad bay muhiim u ahayd shirkaas si maartay heer sara ayuu noogu qabsoomay barnaamijyo qorsheyoon waan ka diyaarinay barnaamijyada aan diyaarinay iyo qorsheyo aan diyaarinay kuwa siyaasiya positioning wax la yiraahdo qorshe dhow ku dhaxe iyo ku fog inta waan diyaarinay oo maangal oo suurtagal ah oo xamaasad ku dhisnay shirka markii laga yimaado haddana waxaan gobolada dhan baan ufuudu kala diray kuwaas oo macnaheedu ufuudaas oo dadkii wacyigu garaadkooda siyaasadda kor u qaadaya isla markaana abaabul in ay ugu muhiimsanayd in halgankii hubaysnaa muxuu ahaay hadda la joojiyey guud ahaanba isla markaana loo gudbay qalin oo macnaheedu qalinkaas oo ah macnaheedu si nabadgelyo oo dimuqraadiyada oo deganaansho iyo xasilooni ay ka muuqato in halgankii sidiisii lagu sii wado in dadka laga dhaadhiciyo oo isku page la akhriyo biyuhu isku meel loo joogaan bay ahayd laba wafti oo ilaa 3 wafti oo gobolada dhan soo maray runtii wax badan baa arrimaha ka qabsoomay kadibna 9 iyo 3 degmo xafiisyo ayaan ka furay
xafiisyadii baan ka furray oo macnihii ma sahlanayn runtii inaad transiting from armed group to political party in laga soo guuro halgan hubaysan oo loo guuro muxuu ahay halgan nabadgelyo oo dimuqraadiyad iyo cadaalad iyo sinaan ku dhisan ma dhib yarayn waqti badan bay naga qaadatay waxyaalaha waqtiga naga qaatay waxaa kamid ah in bulshada isku beej la akhriyo in ummadda la wacyi geliyo in barnaamijkii siyaasiga ah hore wax laga bedelo in macnihii dawladda gaar ahaan guddida doorashooyinka Ethiopia ka badan kun ergey iyo waxaan ku macsuunay oo kale xisbiyada dalka ka dhaqdhaqaaqa intooda badnayd ilaa 10 baan ku macsuunay oo ka soo qayb galay oo ka jeediyay qodobado ay taageerayaan halganka macnihii ay hormuud ka tahay hawlaha wado xisbiga jabada wadaniga xornimada wadaniga ama ONLF ay ku taageerayaan oo solidarity speech ay ka soo jeediyeen marka runtii shirweynahaas uu shirweynuhu aad muhiim u ahaa oo kii afraada wadan gudihiisa ka dhacay waxa lagu doortay gudoomiye waxa lagu doortay golo dhexe waxa lagu doortay hawlo badan baa meesha ka dhacay wax badan dad badan baa isu yimid oo weligood hadda ka hor isu yimaanin oo ciidamadii wadanka gudihiisa joog jiray bulshadii qaybaheedii kala duwaneed maamulkii gobolada madaxdii jabada ee caalamka maqnayd muxuu ahaay dhalinyaro ururada haweenka bulshada qaybadeeda kala duwan marka runtii shir aad muhiim u ahaa oo qadiyada sidii loo sheeb gareyn lahaa laga wada hadlayay barnaamijyada lagu dejinayay marka shirweynahaas oo aad muhiim u ahana uu noo qabsoomay marka waxyaalaha ugu muhiimsan ee noo qabsoomay uu kamid ahaa wuxuu socday ilaa 12 bari registration ama isdiiwaangelin macnihii shuruucdii iyo nidaamkii iyo muddo badan bay naga qaadatay ilaa muddo 7 bilood ku dhawaad ayay naga qaadatay dhinacana shaqada waan ka wadnay xafiisyadii dhinac baan ka furinay dadkii dhinac baan ka wacyi gelinaynay dadka Soomaalida midnimadeeda in la iscafiyo oo la midoobo oo macnihii Ethiopia marka la fiiriyo weligeed waxba naga maqnaa ilaa still hadda waxba naga maqan macnihii xaqa dadka Soomaalida ay ku lahaayeen ilaa hadda mayna helin talafteeda in laga hawlgalo iyadana in ummadda Soomaaliyeed la mideeyo in isku beej la akhriyo in dhibkii ummadda Soomaaliyeed soo gaaray iyada lafteeda la diiwaan geliyo oo dadkii jeelasha lagu maartay ku abaaday dadkii halganka wax ku soo yeelobay dadkii soo barakacay dadkii aqoontii bugtadii dhaawacii iyadana hawlo kale oo aad u farbadan ayaa ahayd in bal tuguliba taagi wargumada inaan u qaban karo iyadana inaan muujino walow anaga laftanadu aanu laxoos ahayn oo inaan dib isu abaabulo dib isu dhisno ahayd in aan hawshaas si parallel in aqoontii iyo bugtadii iyo dhaawacii wax loo qabto in kastoona waxba baahin haddana bal inaan meelaha qaarkood gargaraacno dhinaca kalena anaga xisbiyana iska dhisno dhinaca kalena inaan ummadii Soomaaliyeed mideyno dhinaca kalena inaan ummadii abaabulo dhinaca kalena inaan muxuu ahaa sharcigii oo xisbigu haysan lahaa wadanka ku joogi lahaa si nabadgelyo inuu macnaheedu u operate gareeyo in iyadana la helo intaana waxaa sii dheer inaan dawlad deegaanka wixii aan isleenahay ummadii dadka u anfici inaan ku taageero dawladda federaalka waxaa jiray isbedelada democratization process ka jira dawladda federaalka iyada lafteeda inaan ka qayb qaadano oo xafiiska wasaaraha intaas oo jeer baa shirna loo yeero aan input kana ka dhiibanay iyo ra'yiganagi baarlamaanka sida oo kale hay'adaha diblomaasiyadda si fiican baan u wada shaqeynaa safaaradaha shirarkooda waan ka qayb galnaa xisbiyada sidoo kale waxaan la leenahay muxuu ahaay xiriir baan la leenahay dhammaan xisbiyada dalka cid aan col leenahay ma jirto qaar walba waxaan ka wada shaqeynaa cidda inta aan ka wada shaqeyn karo waayo waxyaalaha aan ka wadaagi karo oo far badan yaa jira marka laakiin dhibka jira waxa weeye siyaasadihii geeska Afrika soo maray ama Ethiopia soo maray haddii xisbiga aad mid ku kala duwantihiin aad tahay kuwaas waa saas inaga daay laakiin hadda waxaa la fahmay caalamku inay xisbiyadu wixii ay iskaga midka ka yihiin in laga wada shaqeyn karo waxa kale ay iska mid kala hayn through the process faltax inta la maro in hadhow tole faltaxdaas ama waqti inta la siiyo in waxa laga yaabaa mustaqbalka wax badan oo aan hadda aan laga wada shaqeyn karin in laga wada shaqeeyo waqti wax xalliyo marka xisbiyadana waa wada shaqeynaa qowmiyadaha iyada sidoo kale iyadana waan xiriir baan leenahay safaaradaha sidoo kale hay'adaha iyo caalamka sidoo kale
duqa magaalada Addis Ababa dadka Soomaalida Addis Ababa degan iyagana adeeg goon fidina COVID-19 ka gobolada waan ka wacyi gelinay rabadaantii oo kale inkastoo hayntu iska yartay haddana wixii aan kari karay soo ururnay agoonta iyo afur siin iyo afur samayn iyo waxaan samaynay inkastoo iska yarayd oo awoodda hayntu iska yarayd guud ahaan wax qabadku wuu badnaa laakiin intaan ka xusuusnaa intaas weeye qorsheyo badan oo hadda aan weli noo hirgelin oo sabab badan oo jira noogu hirgeli waayeen way jiraan iyaga laftooda dib baan u revise gareynaynaayo maalin dhaweyd guddida fulinta haddii uu fadhiisatay waxaa la qiimeeyey xaaladda aan ku sugannahay iyo mustaqbalka waxaa noo yaalla marka waxyaalahaas oo dhanna dowladaha waaweyn ee caalamka hadda matalan Maraykanka oo kale boqolkiiba 50 bay soo saaraan wax soo saarka caalamka haddana qorshayoga dejistaan wax badan baan u hirgeli waayey yaa u hirgelin anagana sidoo kale maadaama xisbi hadda dib barnaamij cusub oo nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda iyo mabaadi'dii iyo hadafku lahaa si nabadgelyo ku doonay bal inaan hal mar talaabsanin oo hadda xoog u talaabsato waa jabi inaan si tartiib u talaabsano wixii aan qaban karo aan qabanno ummadana aan danteeda ka shaqeyno dantii aan u taagnayna aan sideedii u sii wadno yaan ku jiraa marka qorshayogaas insha Allah waxaan rajaynaynaa wax badan inay ka qabsoomi doonaan mustaqbalka dhow ما شاء الله بل عذركن aad hadda soo qaaday coronavirus covid-19 waa cudur aafo baan ku haya caalamka dalkeena farabaan hadda si aad u soo galiya dadkuna ay dhayeelsanayaan waliba dadkeena Soomaaliyeed maxaad kula talinahay dadkaas shacab ku daawanaya runtii cudurkani waa cudur halis ah hay'adda caalamka ee caafimaadka ee WHO in badan bay ka digtay dowladda يعني إثيوبيا جارهان وزارة العافمات كبرنامج بدن بيصارتي شعبك يضياشة يغنيها كوي كقرب قاتل سيدة كلو جالسين لها لكن دمك ترى وحوي رومرس بدن أما كتركوتين بدن أيادات كده حصادا عذر كان عذر أفريقيا كل عماها عذر مسلم كل عماها وهرجب يوحنا شرين runtii cudurkan waa cudur halis dhaqaalihi adduunka dhulku la galay siyaasado badanna uu kharibay maadaama dhaqaalihi kharibay saameyn badan buu ku leeyahay bulshada isu socodkeedii dhaqaalaheedii siyaasadii wax oo dhanba hal mar buu dhulka la galay maadaama wuxuu isku wada xidhan yahay saameyn badan buu ku yeeshay caalamka oo dhan saa darteed ummadda Soomaaliyeed waxa aan kula talin lahaa cudurkan inay u qaataan cudur serious ah oo halisa oo dhibaato badan ummadda Soomaaliyeed u soo jeedi kara saa darteed waa in lala socdaa wasaaradda caafimaadka iyo cidii aqoon u leh iyo hay'adaha caalamka sida WHO kale hay'adda caafimaadka adduunka warbixinada ay soo saaraan aynan qaadanin warbixinada baraha bulshada u badan kuturkuteenta iyo kuwa aan waxba ka jirin dhakhaatiirta iska dhigaya ee sinjibil cab iyo barnaamijyo noocaas marka sinjibish waxa laga yaabaa inay xogaa ama sinjibil ama liin ama waxay doonaato laakiin hadda jeer waa in la raaca barnaamijyada hadda midna ka hortagga oo kale barnaamijyo loo dejiyo oo yaa jira calaamadihiisa oo kale barnaamijyo loo dejiyo baa jira ka hortagga midna social distancing baa jira in la salaamin baa jira qofku markuu ku facayo barnaamijyo noocaas oo loogu talagalay baa jira calaamadihiisana barnaamij baa jira calaamado uu leeyahay markuu qofku midna Muhammad oo kale ama qof oo kale barnaamijyo noocaas markii qofku ku dhaco xitaa wixii la sameyn lahaa iyadana waa la tilmaamay marka barnaamijyada tilmaamaha noocaas oo kale ayaa awaamirta ay soo saarayaan dadka xirfadlayaasha ee arrimaha ku takhasusay in la raaco weeyaan laakiin haddii social media iyo intay dhaafeen Soomaalidu iyaga riwaayad ka dhigayanba marka riwaayadii iyo waxa la kala garan waayay iyo wixii xaqiiqada marka haddii labadaas ku ka darsamaan halistiisa ayaa sii kordhaysa marka ummadda Soomaaliyeed waxa muhiim ah in cudurka halista caabuqa COVID-19 si fiican looga digtoonaado isla markaana la raaco awaamirta ka soo baxaysa laakiin aan la iska ilaaliyo arrimaha ku turkuteenta iyo waxyaalaha badan oo aan anfacaynin ummadda Soomaaliyeed